idin sheego dhamaystirka dastuurka waxa uu qayb ka yahay ahmiyadaha waaweyn ee hor yaalla haddii aan nahay shacabka Soomaaliyeed haddii aan nahay kuwa ammaanada haya iyo kuwa ammaanada loo dhiibtay waxaan rabaa inaan idin sheego marka lafdhabarka shaqada dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo oo aan anigu ra'iisul wasaaraha ka ahay waxa ay ku fadhidaa sidii awoodda ay haystaan kuwa loo dhiibtay ammaanada oo aan anigu ka mid ahay loogu soo celin lahaa kuwa ammaanada u dhiibtay oo ah idinka meesha fadhiya sidaas daraadeed waxaan leeyahay waa inaan dhamaystirnaa dastuurka kulligeen si muwaadin kasta uu u ogaado xaqa uu leeyahay iyo waajibka lagu leeyahay waa inaan dhamaystirnaa dastuurka si aan dalka u gaarsiino doorasho qof iyo cod ah waa inaan dhamaystirnaa dastuurka si aan dalka u gaarsiinaa doorasho qof iyo cod ah taasoo macnaheedu tahay in shacabka Soomaaliyeed ay u codeeyaan cidda ay rabaan inay madax noqoto in cadda la xisaabtamayso mustaqbalka madaxda Soomaaliyeed ay tahay shacabka Soomaaliyeed si kale haddii aan u dhigno in awoodda gacanta mar kale loo soo geliyo shacabka Soomaaliyeed dastuurka waa la dhamaystiraa si hay'adaha dawladda ay ugu kala qaaxnaato shaqooyinka ay leeyihiin oo aan isugu khaldamin dastuurka waa in la dhamaystiraa si aan u oogno sareynta sharciga dastuurka waa in la dhamaystiraa si aan u adkayno midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed dastuurka waa in la dhamaystiraa si ay u kala cadaato awoodaha xukuumadda iyo labada aqal tusaale ahaan dastuurka waa in la dhamaystiraa si isqabqabsiga loogu bedelaa xasilooni siyaasadeed dastuurka waa in la dhamaystiraa si loo kobciyo dhaqaalaha dalka dastuurka waa in la dhamaystiraa si aan dib ugu yeelno qarannimada dalkeenna una diyaarino jiilasha naga dambeeya inay naga guddoomaan Soomaaliyada ay xaq u lahaayeen waxaan halkan markaa ka cadaynayaa xukuumaddaydu waxay ku ballan qaaday inaan bixin doono $3 milyan oo loogu talagalay dastuurka waxaan hortiina ka ballan qaadayaa inaan bixin doono si loogu dhamaystiro laakiin waxaan rabaa ballanteenu inay ahaato dastuur Soomaaliyeed maskax Soomaaliyeed dhaqaale Soomaaliyeed talo Soomaaliyeed iyo midnimo Soomaaliyeed oo dib u yagleesha Soomaaliyada naga luntay waa mahadsantahay